Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa mar kale barnaamijkii barashada daawooyinka qeybtii 17aad. Qeybtan waxaan uga soo qaadan doonaa daawooyinka la isku yiraahdo anti-malarial drugs ama se daawooyinka loo qaato ama loo isticmaalo xanuunka loo yaqaano malaariyada ama se duumada hadba saa u taqaanaan. daawooyinkan la isku yiraahdo anti-malarial drugs waa daawooyin noocyo fara badan ama se qaybo fara badan markaasi iskugu jira, balse qaybaha ugu muhiimsan ama se qaybaha ugu caansan waxay kala yihiin qayb la yiraahdo artemisar iyo weliba sidoo kale qayb kale oo la yiraahdo chloroquine, hydroxychloroquine sulfate iyo weliba qayb la dhaho mefloquine. Haddaba qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena nooca loo yaqaano artemisar anti-malarial drugs. Daawadan waxay ku timaadaa kaniini, sharoobo iyo weliba irbad. Daawadan artemisar waxaa loo isticmaalaa malaariyada aadka u daran ama se malaariyada marka ay gaadho xaalad xun, waxaana loo yaqaanaa severe malaria. Sababtoo ah malaariyada waxaa loo kala qaybiyaa 3 qaybood oo kala ah mild malaria ama se duumada caadiga ah iyo weliba sidoo kale moderate malaria oo ah duumada ama se malaariyada meel dhexaadka ah iyo weliba sidoo kale qaybta ugu dambeysa loo yaqaano severe malaria oo ah malaariyada marka ay gaarto meel xun ama se heer aad u xun oo qofku markaasi ay gaarsiin karto haddii aanan xilli dhow ama se waqti dhow aan wax daawa ama se wax daryeel la siin in qofkaasi ay saameyn u geyso xubno badan oo kamid ah jirkiisa. Haddaba waxaa jira waxa la yiraahdo dosage ama qiyaasta daawada laga qaadan karo. Daawo kasta waxay leedahay qiyaas loogu talagalay inaad ka qaadatid, sababtoo ah haddii qiyaastaasi aad ka badisid ama se aad iska badisidba waxay ku keeni kartaa dhibaato caafimaad. Haddaba daawadan artemisar qiyaasta laga qaadan karo waxay ku xiran tahay hadba qofka da'diisa ama se qofka inta sano uu jiro, miisaanka qofka iyo weliba heerka malaariyada ama se duumada haysa. Tusaale ahaan oo kale caruurta oo kale daawadan waxaa la siin karaa sharoobo ama se waxaa u fiican caruurta in la siiyo sharoobo. Tusaale ahaan ilmaha haddii uu jiro 1 bil ilaa 6 bilood oo kale waxaa muhiim ah in markaasi la siiyo 5 ml ama se qiyaas dhan 5 ml oo sharoobo ah. Sidoo kale dadka waaweyn daawadan artemisar waxay qaadan karaan irbad, sababtoo ah daawadan waxay ku timaadaa kaniini, sharoobo iyo weliba irbad. Caruurtana soo sheegnay waxaa u muhiimsan inay qaataan sharoobada ama se caruurta waxaa u fiican sharoobada inay qaataan, sababtoo ah irbad way adag tahay ilmo yar in markaasi la siiyo irbad. Laakiin dadka waaweyn waxaa u fiican inay qaataan irbada. Irbada waxay leedahay miligaraamyo markaasi dhowr ah. Waxaa ugu muhiimsan qofka marka hore uu qaadanayo irbada inuu ka qaato 80 miligram 2 xabo oo 80 miligram kadibna markaasi inuu qaato 1 xabo. Daawadan artemisar waxay leedahay wax loo yaqaano side effect. Sida caadigaana daawo kasta waxay leedahay saameynta daawadan artemisar waxaa laga yaabaa qofka inuu isku arko saacadaha ugu horeeya oo daawada qaato xoogaa yar oo wadna garaaca, laakiin waxaa laga yaabaa jirkiisa marka ay daawada gasho in markaasi uusan wax kala dareemin ama se wadna garaacaas uu iskiis isaga baaba'o. Haddaba daawadan artemisar haddii aad tahay masalan qof uur leh ama se hooyo ilmaha nuujisa oo kale, waxaa muhiima daawadan inaadan ku degdegin inaad qaadatid oo marka hore dhakhtarka aad la tashatid. Fiiro gaar ah taxadar haddii aad tahay hooyo uur leh ama se hooyo ilmo nuujisa. Haddii aad isku aragtid xanuunka duumada ama se malaariyada, fadlan ha ku degdegin in aad daawadan ama se daawooyinka kale ee loo qaato xanuunka malaariyada aad qaadatid ama se aad isticmaashid adigoonan u tagin dhakhtar ama se adigoon la tashan dhakhtar. Sababtoo ah hooyadu markay uurka leedahay ama se marka ay nuujinayso haddii ay daawooyin iska qaadato waxay dhibaato u keeni kartaa hooyada laftirkeeda iyo weliba sidoo kale ilmaha la xiriira. Sidaa darteed haddii aad isku aragtid xanuunka duumada, marka hore dhakhtarka u tag, ha laga baaro, markaasi dhakhtarka isagaa ku siin doona daawo markaasi aan wax dhiba u keenayn ilmaha caloosha ku jira ama se ilmaha aad nuujinaysid. Sidoo kale haddii aad tahay qof qaata daawooyin joogto ah ama se qof la nool xanuunada loo yaqaano chronic diseaseska oo qofka uu la noolaado muddo fara badan oo noloshiisa ah, gaar ahaan xanuunada la isku dhaho diabetes mellitus ama se xanuunka macaanka
hypertension xanuunka dhiigkarka iyo weliba sidoo kale xanuunka loo yaqaano heart disease ama kansarka. Dhammaan xanuunada qofka uu la noolaan karo muddo fara badan ee noloshiisa ah, iyo weliba haddii aad tahay qof daawooyin joogto ah qaata, intaba waxaa muhiima daawooyinkan malaariyada inaadan ku degdegin ama aadan iska qaadanin adigoon dhakhtar u tegin oo dhakhtar aadan la tashan. Sababtoo ah waxaa dhici karta daawadii aad qaadan jirtay iyo daawadan aad qaadatay inay iska hor imaato, balse dhakhtarku mar walba wuxuu fiirin doonaa daawada kugu habboon amase daawo aan wax dhiba kuu keenayn oo daawooyinka aad qaadanaysidna aan ka hor imaanin. qaybtii 17aad ee barnaamijkii barashada daawooyinka waa naga intaas. haddii aad waxun ka faa'iido la sii wadaag asxaabta, haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.